السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد. aad baa loo daalay runtii fadhiga aad fadhideen ilaa iyo saaka sagaalkii ilaahay waxaan ka baryayaa fadhigan inuu idinkugu bedelo fadhi ka qurux badan oo aad fariisan doontaan insha Allah taala maca al-habib jannatul firdaws. maxaa intaad halkan u fadhideen dhikriga ilaahay waxaad gurubsanayseen waa ajr marka sidaas oo kale la isugu yimaado guri ilaahay oo dhikri la dhageysanayo muhaadara iyo wahyi la dhageysanayo runtii malaa'igaha soo deganaya malaa'igaha ina hareereynaya malaa'igaha inoo duceynaya waxa soo dhan baad heleyseen haddaad maqashaan malaa'igaha soo degayana macnaheedu waa xasilooni iyo wanaag iyo dambi dhaaf iyo wax walbo aad u baahan tihiin baa ma aragtay soo degaya aad baad u nimcaysateen runtii waxaan si aad uga sii jeclaan lahaa inta aad garanaysaan asxaab ee aad halkaa dunya aad wada raacdaan inaad soo ururisaan ilaa banaanka in la buuxiyay ahayd maanta marka yaan laga gaabinin runtii khayrka aad u timaadeen inaad la sheegaraysaan walaalihiin daa'iman sheegareentaas waa waxa aynu la'nahay Soomaaliya arag social media maanta dhan laga hadlayay sheegareey lagu leeyahay gabdhaha uu sheegayo Sheekh Abdirasaaq ilaahay ha soo hanuuniye inta la soo daayay iyadoo qaawan madaxii xiran rinji soo marsatay oo ayaa hadana sheegareel lagu soo dhigayaa markaas la sii sheegarina wartana mudan in la sheegareeyo maanta aad baa runtii wax lidin kugu sheegay wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin marka waxaan ka sii bilaabayaa sheekhani meeshii uu runtii ku ekeeyay oo makuwan ilaahay sheegay rasuulku sheegay ee la wanaajiyay cizi iyo sharaf loo yeelay oo waliba janno lagu misaalay miyaa ixtiraam mudan mise kuwa la fogeeyay ayaa ixtiraam mudan ee laynoogu yeerayo waxa laynoogu yeerayo waa been waxa laynoogu yeerayo wallahi waa been xurriyada iyo wanaaga idin ka maqan ee ay leeyihiin gaaladu waanu idin soo dhicineena ee ka soo baxa guryaha waa been waa un ibliis idin kugu yeeraya albaabadii cadaabka weeyaan gabar baa soo wacday markaas koow ma aha laba ma aha saddex ma aha sida la isoo wacayaan culimadu dhan waa loo soo wacaa idinkuna waa ogsoontihiin waxay ku leeyihiin sheekh oo Awrooba sheekh waxaanu ka shaqeynaa meel daarul muslimin la yiraahdo oo waalidiinta la geeyo waa meesha lagu xoro waalidiinta markay weynaadaan marka dhacaankoodii iyo dhiigoodii iyo dhuuxoodii iyo waxoodii oo dhan la miirto oo hooyadii iyo aabihii cad iyo laf ay noqdaan oo aanay waxba qabsan karin maxaa loo baahnaa ilaahay baan ku dhaariyay ayaa waxa la geynayaa daarul muslimin waxa geynaya dadkii miirtay dhiigoodii iyo dhacaankoodii halkaas ay ku xoorayaan markaas yaa loo qabanayaa idinka la idin qabanayaa tagaya halka gabadhii waxay leedahay oo maxaad u qabanaysaa waanu u qabaynaynaa odaga ayaa loo qabaynayaa islaamtaas loo qabaynayaa la dhaqayaa bambarkii loo xirayaa najaasadii laga tirtirayaa iyo naawada nijaasi waxa laga tirtirayo waxa loo tirtirayaa bakala aqoonin hadhow waa la socodsiinayaa beerta lagu wareejinayaa yaani waa la kay gareynayaa waa la xana marka maxaad rabtaa waxay tiri shaqadan ma xalaal ba mise waa xaraan ma qaban karnaa shaqo kale oo Awrooba laga qabanayo malaha gabdheen inta badan waa waxay qabanayaan marka ma qaban karnaa shaqada mise ma qaban karno ana leeso weydiina markaas waxaan ku yiri culimadu inay ka jawaabaan baa laga yaabaa waa xalaal iyo xaraan laakiin waxba ka horeeya xalaal iyo xaraan waxaan yiraahdaa gabar yahay xalaal iyo xaraan haynoo dambeysay adugu aaway kuwii ku dhalay waan arkaa kuwii dhalay way soo tooreen adiga aaway kuwii ku dhalay hooyo aabo ma leedahay sawda maaha xageed ku ogtahay way yara aamusaysaa marka way ka soo dhuumatay Soomaaliland ka soo dhuumatay Ethiopia ka soo dhuumatay Djibouti Soomaaliya Kenya waa laga wada tagay waalidiintii waa la dayay bal iyagoon la ogeyn ayay wada baxeen
halkaasaa tahriib la sii maray, baddaa la sii maray, intii badbaaday weeyaan inta halkaa tegaysa. macsi baa lagu baxay, macsi baa hooyadii looga cararay, haddana dhulkii la tegay ee la rabay ilaahay in loo noqdo, loo toobad keeno, macsi kale haddana lasii banaysanayaa. markaasay ku leedahay war aaway hooyadii ku dhashay, aaway aabbihii ku dhalay ee la yidhi waa jannadaada, aaway 9 bilood uurku kugu waday, 2 sano ku nuujinayay, dhowr iyo 10 sano kale ku soo korinayay, yaa aad miyaratay dhacaankoodii. soo ma ogid kullamaa indhahooda indhahaagu ay nuur yeeshaan, indhahooda daciifaya. kullamaa dhabankaagu uu qurux noqdo, kuwoodiibaa dharaya oo eber noqonaya. kullamaa dhegahaagu wax maqlaan, kuwoodiibaa baaba'aya. soo ma ogid kullamaa aad xoog yeelatid, cudud murqi aad yeelatid, tallaabadaad qaadi kartid, iyadiibaa gabaysa. soo ma ogid wax walba iyadiibaa ku siisay. aaway hooyadii intaa ku soo korisay ee maanta la rabay inaad dhaqaalaysid, aaway. markaasaa maxay sheegaysaa? waxba ma sheegaysa. waxaan dhahay marka xalaal iyo xaaraan ha ku dambayso, laakiin waxaan rabaa inaan ku tusiyo in waxa maanta ku haysta ee aad dul taagan tahay ay tahay ciqaab aad adigu kasbatay, waxaad gacantaada ku samaysatay. markaad cidlaysay oo aad ka soo tagtay tii xalaasha ahayd, shaqadii xalaasha ahayd, ilaa waxay weydiinaysaa shaqadan ma xalaal baa mise waa xaaraan? shaqadii xalaasha ahayd, shaqadii waajibka ahayd, bal lagu amray, lagu yidhi hadday da' ku gaaraan hooyo iyo aabbo agtaada soo dhowayso, garabka u raarici, u ducee lagu yidhi, yaa ogolanka iyo laabta gasho, u shaqee lagu yidhi, waa jannadaada. markaad ka soo tagtay hooyadii iyo aabbihii agtooda adigoo jooga, haddii aad ku dhimatid aad jannada geli lahayd. hooyada iyo aabbaha la joogooda naxariista ilaahay ay kugu soo deganayso, dembi dhaaf uu kugu soo deganayo, darajadaada kor lagu yeelayo. markaad ka soo tagtay yaa ilaahay muxuu kugu ciqaabay? dad malcuuniin ah, waalidkoo ilmahoodii soo nacay oo la soo tuuray, oo xataa sidaa hadday ku dhintaana la og yahay cadaab waara in ay gelayaan, noloshoodan ay lacnadu ku soo deganaysa. in aad u shaqaysid, yaa waxa keenay waa falkaa xune aad samaysay. waxaan idhi xalaal iyo xaaraan ha ku dambayse, agtooda ha ku dhimanin. ma garanaysaa wakhtigaad dhimanaysid? may haddaad maanta agtooda ku dhimatid, sidaa xaalkaaga oo ah ilaahay unbaa waa lagu yaabaa. ilaahay ka baq, ka soo carar kuwa agtoodan guriga ka raadinin. hooyo iyo aabbo agtooda inaad ku gaajootid ayaa kaaga fadli badan 1000 jeer yaa inaad gaalada odayaalka ah, duqooshinka agtooda aad ku dheragtid. war dherag xagga iyo lacag xagga aad ka keentay, waalidkaa miyaad siinaysaa? islaan gaal ah inaad xaarka ka tirtirtid, bambar u xirtid oday adoo gabar ah, inaad nin maanta dhan cawradiisi qurunkiisi aad u raaxaysid, ma wixii aad ka soo heshay miyaad hooyada iyo aabbaha u quurtaa inaad siisid? damiirkeennii xagguu aaday? marka waxaas way waxa aan ku jirno. walaalayaal aad baa runtii maanta loo hadlay, aad baa wadaadadu maasha allah u hadleen. waxaan rabaa oo qura inaan idinkugu daro gabdhaha yaryar. inta badan gabdhaheenu waa guur la-aan. guurka waddaa loo maraa. gabar walba guur bay ku riyoonaysaa. waxay ku riyoonaysaa inay hesho guur ay ku faraxdo, farxad geliya, guur ay ku dhowrsato, guur ay ku xasisho oo ay ku degto, guur runtii ilaahay ay ugu dhowaato ayay doonaysaa. guur ay ubad quratu cayn ay ku hesho ayay doonaysaa. runtii welad saalixa ay ku hesho oo ay ilaahay ugu dhowaatay doonaysaa. wanaagoo dhanbeed. laakiin guurkan sidaa ah waxaa gabdhaheena inta badan ka khaldan wadadii loo marayay. had iyo jeer way ku soo wacayaan gabdhihii iyagoo 16 jira ah oo garooba ah. ilaahay baan ku dhaariye eega waa 16 jir. gabar aan isleeyahay weli ma qaan gaarna intay Denmark anoo joog ii timid baa tiri sheekh ninkayga ahaa ma aadan qaan gaarina, maxaa nin ma aadan gaarina? sheekh wiil baan leeyahay, wiilka yar anaa dhalay. waxay ka gabadha quruxdeeda waa diyaabay, maxay ka cararaysaa ay weydiinaysaa ninkiiyo dayacay.
marka ani ciladu waa aqaana culimaduna waa yaqaanaan idinkuna waa taqaanaan laakiin waa iska dhiga tirtaan waxaan yiraahdaa gabar 16 jir oo la furay oo garoob ah hooyo single mother ah cilada inta badan maxaa keenaya markay guurkan quruxda badan ee cibaadada ah ilaahay loogu dhawaado markii la dayacay wadadii loo mareeyay guri waa la iska soo galay bilaa hoodi bilaa idin baa la galay guri ha oo soo cayrinaya سموغي والو دبا دبا كيمانايا حبيبك صلى الله عليه وسلم هدي غوريغا فرن الى ويدور غوريها يردم لها جيرين غوريغا فرن هدي قف ودada maraya jidkii ku yaalan oo saa u soo fiiriyo gurigaaga dhagaxaad ku tuurtay ish aad ka ridid waa hadur dhiig malaha diya malaha qofkaas dibba kaaga imaanayso marka guriga waxa la galay amaana waxa la qaatay bilaa hoodi ogolaansho la'aan wadadii baa halaysan marka dadkan aad arkaysaan guurkii wadadii loo mareeyay ma aanay marin wada kale ayay ka soo mareen hadii gurigaaga daaqada laga soo galo ma ka waran qofkaas waa maxay waa tuug idaylkeen guurkii waxaan ku noqonay tuugaanu ku noqonay waa la xaday ilaahay baan ku dhaariyay gabar la xaday in ma xalaal ma dhalaysa ma dhalaysa nolol raaxale ma ku noolaan male marka waxaan rabaa inaan idin tuso laba wada kaliya haddii aad guursanaysaan gabdheena marka hore guurka Allah u fududeeyo inta aan guursanin guur xalaal Allah siiyo wadada guurka quruxda badan aad ku raadinaysaan ilaahay baa noo jeexay oo dhahaya ragga iyo haweenka intuba waxa la dhahayaa fankihuhunna biidni ahlihinna idinku ehl baad leedihiin amaanadan 18 sano ugu yaraan ilaa 25 sano waalid baa soo haayay waalid baa ka murgaayay halkaas lagu ogaa gabadha hooyadii iyo aabihii waxa kan ilaalinayay oo dhan marka la rabo amaanadan in laga la wareego waa in lagu la wareegaa biidni ahlihinna gabadha todobo wali iyo ka badan baa loo yeelay oo ilaalinaya barka amaanadu waa culus tahay gurigii 18 sano ay joogtay 20 sano laga bixinayaa maanta see looga bixinayaa ma Facebook iyo social media gabadhii laga soo download gareysanaya gabadheena saasay noqdeen in halkaas laga soo download gareeyo maxaa keenaysa marka ubad may ku qaadi gabar noocaasa kuma qaadis oo waxay dadkan culimadu idinkaga dagayeen idinku yeerayo weeyaan marka maxaa loo baahan yahay fankihuhunna biidni ahlihinna marka ugu horeyso wadada ugu horeyso ee aad guurkaaga ku raadinaysid gabar yahay Allah ku asture waa inay noqotaa bi taa'ati ilaahay ogolaashihiisa amarkiisa inaad qaadatid ehelkaaga oo aanan ku bixin ogolaanshaha ehelkaaga waa in aad ku dhaqaajisaa ilaahana ku faraayo ilaahay baad ku ateecaysaa tan labaad waa maxay waa bi birri alwalidayn aad baa looga hadlay والدك إن الأوحسان في الشيء الربا وقبر والد بانت واحد كتجي هو يدي 18 سنة كسوك ورسي كجعليد قلبي يد كوينيد أيات كتجي سا أو أتكور يجيسا محلو بهاي إن فرحت دي أي كوكوريني سي أدمان تجوري كجورك تدا لو بهاي دعاء يا لو بهاي إنه يكون راعيسو هو إنه يكون حارد أو أي كقرحيسو أو أي أمانة ذي وريجيسو بركي واحد وعبادة عادة معها جورك عادي إنه كدجن أرجع ماله ورجيا شهوة مركي كوك عضو أيو دونا يا إنه إذن كوك تو أيو دونا يا سيد أو جلان إنسان مرك يا إذن كنا مرياتين مركا يدعه يسقوا الدمير لاوي وأرجي العربات أنا دين لهين أخلاق لهين هل كاس دين وحاوها السوشيال ميديا يدقن كان قال هذا وحاسوا أركايا markuu arko idinku udgoon oo ma sha Allah arfaaya nadiif ya ayaa wuxuu doonayaa inuu idin urursado idin miirto dhacaankan idhuuxan idhiigan wanaaga inuu idin ka miirto waalid baa iskale waa meesha waa labada meel kamid ilaahay ku tilmaamayo miithaaq ghaliid guriga waxaad kaga baxaysaa ballan iyo ahdi adag yaa la galaya Allah la galaya hooyadii aabaha dheeldheel ku wareejin mayaan amaanadan waxay ku wareejinayaan ahdi iyo ballan adag bal ugu wareejinaya maxaa yeelay waxa loo geynayaa qof aanay ogeyn sad guriini uga baxaysaan idinkoonan waalidkii raali gelinin farxad gelin sad guriini uga tagaysaan ilaahay aynu ka cabsano ilaahay aynu ka baqno tan labaad waa waalidiinta tan hore waa ilaahay inaad ateecdaan
ehelkiina ogolaanshahooda aad ku baxdaan oo aad guri kale ku tagtaan. marka labaadna waalidiinta inaad farxad gelisaan, hooyo iyo aabbo faraxsan oo qoslaaya oo maaragtay idin duceynaya, idin sagootinaya, galbinaya, inaad guryihiina ka baxdaan. ilaahay muxuu sidaa miisaaq khaliid uu idinkugu tilmaamay? maxaa sidan lidin asturay, lidinkugu xijaabay? waxaad ogaataan in aad tihiin uunkan waxa saaran wax ugu qaalisan, in aad tihiin rag wax uu hanto, rag wuxuu u ordo, wuxuu u shaqaysto, wuxuu hantiyo, wuxuu gollanka iyo laabta geshto, waxa u qaalisan in aad tihiin idinka. ani ma dhihina rasuulka dhahay sallallahu alayhi wasallam ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة. waxa u khayr badan wax rag uu hanto, uu kaydiyo, uu guur ka raadiyo, ubad ku beerto, uu ammaano u dhiibto, wax ka wanaagsan uunkan ilaahay ma keenin gabadha saalixada ah. mar kalena uu leeyahay la weydiinaya rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh ayu nisaa'i khayr, muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam? wuxuu yidhi allatii tasuruhu idaa nadar wa tutiicuhu idaa amar walaa tukhaalifuhu fi nafsiha wamaaliha bima yakrah. imra'a saalixa taytolkan ilaahay baa idin siiyey, rasuulka idin siiyey, laakiin bilaash lidinkuma siinin. sifooyin ayaa lidinku siiyey, dadaal aad samayseen ayaa lidinku siiyey. gabar walboo aad dadaalkaa samaysa sifadaanay qaadanaysaa. raggana waxaa la yidhi gabadha taytolkaa leh, shahaadada la yidhaahda saalixa, imra'a saalixa, gabadha sidataa guursada. annaga sidaasaa nala leeyahay. marka gabar walba taytolka inay ku dadaasho waayo, ma aha PhD aan qaadanaa iyo business aan samayna administration iyo xidigaha iyo badda waxbaan baranayaa, ma aha. laakiin imra'a saalixa sidaad ku noqon lahayd waa taytol aan adduunka kaaga haraynin. kaa hari maayo. shahaadadan way kaa haraysaa, businesskan waa kaa haraysaa, xaabadan aad ururinaysid way kaa haraysaa, laakiin waxaan kaa haraynin waa imra'a saalixa shahaadada la yidhaahdo. maxaa yeelay shahaadadaa waxaad ku heshay waa dadaal. lacagtaan waa ku soo gelaysaa, bila dadaalay ku soo geli kartaa, lacagta dhaxal baad u heli kartaa, wax dhiba ma laha. laakiin imra'a saalixa inaad noqotid shay adag waay. maxaa wacay? ibliis baa ku daba taagan, dadkii hadda laga sheekaynayay gaaladii baa ku daba taagan oo guryaha kaa bixinaya. marka waxaan ku gabagabaynayaa imra'a saalixa waa maxay? gabadha saalixada, ilaa gabar walba saalixa ahay ku leedahay. maya rasuulkaa xadidaya imra'a saalixa sala allahu calayhi wasalam. rasuulkuna wuxuu ku xadiday idaa nadara ilayha sarathu, wa idaa amaraha ataacathu, wa idaa gaaba canha xafidathu. yacni haddii uu eego ninkeeda, gabadha way farxad gelinaysaa. diinteeda, dhaqankeeda, akhlaaqdeeda, madharkeeda quruxda badan, sida isugu soo qurxisay ninkeeda. soo ma ogid qurxinta raggiina ay isu qurxinaysaan waa 330 ka mid ah sifooyin aad leedihiin. 330 waxaa la siiyey madharkaaga. haddii uu eego ninka madharka gabadha muuqaalkeeda quruxda badan way farxad gelinaysaa. 33na waxaa la siiyey haddii uu amro way ogolaanaya, way ateecaysaa macruuf ah. 33na waxaa la siiyey haddii uu maqan yahay gurigay ilaalinaysaa. marka maxaa loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay 33ka waan dayacnay runtii. haddii 66 aad samaysid oo 33 aad dayacdid, imra'a saalixa noqon maysid. imra'a saalixa waa 3dan sifo, waan meesha ugu hooseysa, darajada ugu hooseysa lagu noqon karaayo imra'a saalixa. gabdhaheena maanta isu qurxiyaan, ilaahay baa ku dhaarshay. waxay isu qurxiyaan walaalahood, saaxiibadood, aroosyadooda, nimanka kale, meelaha kale, golayaasha, markay bannaanka u baxayso intaasaa la isu qurxiyaa. diracyada qaaliga ee khafiifka maxaa loo gataa? dahabkan faraha badan maxaa loo gataa? ii sheega. saaluunadan iyo maxaa loo tagaa? kawafeerada iyo ma ninka mise xagga? maya, ninkaa la rabaa inay isu qurxisid. ninkan ha ula imaanin diricii dhoobada lahaa, canjeerada lahaa, jikadii suugada lahaa ee intaad ku diifsatid aad isaga tirtiraysay, intaad suuliga geshid, ilmaha intaad u soo qabaysid, wixii saabuuntii lahaa adigoo dhididsanoo shiiraya ha soo ag fariisanin. sidaas ma ku tegaysaa aroosyada? ilaah baan ku dhaariye. sida aroosyada iyo asxaabta iyo jaarka ay isugu qurxinaysid si ka darnaa la rabaa. bal waxaaba madmuum ah
oo marmar xaaraan ah in aad banaanka sida isugu qurxisid lama ogola qurux yaa leh raggaa iskale idaa nadara ilayha saratu allah idin barakeeyo mawduuca waa dheer yahay in badanna waad fadhideen maanta ilaahay waxaan ka baryayaa gabar walba oo aanan guursanin guur xalaal ah oo ay ku degto oo ay ku qabowdo ku dhowrsata ubad saalixa ku hesho inuu ilaahay siiyo goor dhow weliba inuu ilaahay siiyo mid madaxa u saaran indhaha hortooda u jooga faraanti u noqda oo ay ku xaragooto ilaahay ha u sahlo inta aanan guursaninna inta guursatay ee aan ubad dhalinna ilaahay waxaan ka bariyay ubad saalixiina inuu ilaahay siiyo reer sal ballaaran inuu ilaahay ka yeelo kuwa guri lagu soo hirto guri iimaan ilaahay ha ka yeelo khilaafaadka guryaheena allah ka saaro 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 hooyo walbo single mother ah ilaahay waxaan ka bariyay ilaahay inuu maaragtay uu say u yeelo inuu say u yeelo dadkeeni waa kala maqan yihiin dadkii isqabayay ilaahay ha isu keeno dadkii dad isugu jeclaa weeyaan labada isqabtaa la yirihunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dharkii waa naga dhacay runtii markii la kala tegay oo adduunyo loo kala tegay ilaa aakhiro laguma kala tagee aakhiro dadka isu keentaaye ilaahay ha isu soo celiyo ilaahay ha isu soo celiyo reeraheennii ilaahay raggii dumarka ha isu soo celiyo waalidiintii iyo ubadkoodii allah ha isu soo celiyo walaalihii kala tegay allah ha isu soo celiyo ilaahay jaarkii wanaagsanaa ha isu soo celiyo wanaaggeennii qiyamkeennii cizigeennii sharafkeennii allah ha inoo soo celiyo bal diinteennii baa tagtay ilaahay ha inoo soo celiyo adduunyaynu ku bedelanaye ilaahay waxaan ka baryey hamiga noogu weyn diinteenni aakhiradeenna inuu ilaahay ka yeelo in badan baa xanuunsan hooyooyin baa xanuunsan awaalidiin baa xanuunsan ubad baa xanuunsan ilaahay waxaan ka baryay bukaan jiifi bukaan socod ilaahay ha caafiyo isbitaalada allah ka soo saaro kuwa guryaha jiifa allah ha caafiyo bukaan socodka ilaahay ee luudaya ka caakufaya ilaahay ha u gargaaro ha xoojiyo caafimaadna ha siiyo in badan baa ubadkeena xabisadu ku jiro xiran allah ha ka soo saaro ilaahay ha ka soo saaro in badan baa lunsane oo dhumay oo la la'yahay ilaahay ha soo ururiyo baadideena allah soo ururiyo in badan ayaa diintii ka tagay allah ku soo celiyo caasi noqday ilaahay soo ururiyo ubadkeeni waalidiinteeni Awroba aaday iyo reer galbeedka ubadkii baa laga qaatay in badan ubadkooda allah u soo celiyo in baa lagu soo socdaaye ilaahay waxaan ka bari ilaahay ha ka xijaabo gaal dhergi maayo shayaadiinul insiga idin yeeraya dhergi mayaan calmaaniyiintu dhergi mayaan intay ubadkiinii qaateen raggiinii qaateen ayaa qiyamkiinii diintiinii qaateen bay wax walba ku dhergimayaan raallina noqon mayaan ilaa diintooda aad raacdaan ma raalli baad ku tihiin diinteeni inaad doorsataan oo aad calmaani noqotaan gaalo noqotaan guri ka baxa gaalnimo weeyaan iska ilaaliya ilaahay qiyamkeena ha inoo soo celiyo in yar siduu sheekh sheegay 30 ruux waxaana dhamayn in yar oo waliba meediyaha laga arkay oo ka yar yihiin in aad raacdaan oo aad qaad oo ay idin duufsadaan idinka oo dhan waa runtii shay aad u xun laakiin waa wax jira waay maxaa wacay hal baruur ah ayaa baruuro badan hadii la dhex geliyo way qurminaysaa laakiin hal baruuro wanaagsan hadii baruuro badan oo xun la dhex geliyo ma hagaajin kartaa maya ilaahay hayna hagaajiyo laakiin waxaan rabnaa annaga waxa culimadu sheegayaan inaad sheegaraysaan tan la yahay taa weeyaan idinka un baa qaadanaya qof walba dukaankeedii bakhaarkeedii hor fariisanaysaa afkaasba maba ka hadlaysaba adduunyadii kuwii kale ay adduunyadoodii la galaysaa qaada waxaan waa ammaano culimadu waxaan ay maanta u qaylinayeen waa inaad guryihiina geysaan ducaad aan noqotaan aad sare martaani intaasaan kusoo gabagabeynaya astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmatullah جزاهم الله خيرا وخير الجزاء الأخ الشيخ محمد إبراهيم كينياوي ميزانك حسناتك الله وبشو لبدي سوالي الدم بوضع الله مدافع أننا إلهي سبحانه وتعالى هل كان مقتيو intaasi waxay noogu soo gabagabobay muxaadarooyinkeennii maanta aan ku talagalnay gabdhaha walaalada oo muslimaadka ah in aan ku xasuusino